mar kale u diyaara. aad baad umahadsan tahay xasan xarbi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warka madaxdiisii xubno ka mid ah culimada wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulamo wacyigelin la qaatay shaqaalaha afar wasaaradood ka mid ah wasaaradaha dalka. qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Mareykanka ayaa taageero ballaaran u muujiyay heshiiskiisa afkarad ee dhex maray dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya. gudoomiyaha gobolka Saraar ayaa shir la yeeshay isu duwayaasha laamaha dowladda ee gobolkaasi Saraar. wafdigu hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Somaliland ayaa isaguna gaadhay magaala madaxda gobolka Gabiley ee Gabiley, iyadoo weli ay socoto gumaadkii ay ku haysay yuhuuddu dadka reer Falastiin ayaa 30 qof ay ku dhinteen halka tiro kale ay ka dhaawacmeen kadib markii xalay ay weerar ku qaaday xerada qaxootiga ee Nusayra ciidamada cirka ee yuhuuddu. tirada codbixiyayaasha doorashada madaxtinimada dalka Ruushka ayaa la sheegaya iyaduna inay kor u kacday kadib markii dadku ay u soo baxeen goobaha doorashooyinka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyaduna shaacinaysaa tirada ciidamada ah ee ciidamada dalka Ukraine ay ka dileen 24 saacadood ee ay ka soo gudubnay. intaas dhegeystayaal waa qodobada warkeena ugu doorka roon iminkii halkan isagii oo fidsan. wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa xilkii kala wareegay wasiirkii hore wasaaraddaasi Raabi Cabdi Maxamed. munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, xildhibaano, salaadiin, madax dhaqameed, mudan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. wasiirkii hore wasaaradda horumarinta kalluumaysiga mudane Raabi oo ka hadlay waxyaabihii u qabsamay muddadii xilkayay ayaa sheegay inay ku guuleysteen diyaarinta xafiisyada wasaaraddu ay ku shaqayn doonto iyo qorshaha siyaasadda ay ku howlgeli doonto wasaaraddaasi. waxaanu intaa ku daray inay diyaariyeen qorshihii ay ku howlgelisay wasaaraddu iyagoo kaashanaya mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland. sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda mudane Maxamuud Warsame Jaamac ayaa madaxweynaha Somaliland uga mahad celiyey xilka uu igmaday. sidoo kale waxa uu ballan qaaday in xilka loo igmaday uu ka soo bixi doono haddii eebaha awoodani u ogolaado. xubno ka mid ah culimada wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan wacyigelino ku tegey 4 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha dalka. culimadan oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka socotay waaxda horumarinta dacwadda ee diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulankan wacyigelinta la qaatay wasaaradda horumarinta biyaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda tamarta, wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha. culimadan ayaa kulankan ay la qaateen shaqaalaha iyo madaxda wasaaradaha iyagoo ku wacyigelinaya shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiintoodaba inay ka faa'iidaystaan bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaana ugu horreyn kulamada ka hadlay agaasimaha waaxda horumarinta waxbarashada iyo dacwadaha wasaaradda awqaafta sheekh cabdixakiin maxamed muuse, madaxa dacwadda nuur maxamed jaamac iyo sheekh yuusuf cabdi xore. waxaanay tilmaameen in faa'iidada bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku wacyigeliyeen shaqaalaha wasaaradaha iyagoo uga mahadnaqay sida ay kulamadan uga soo ajiibeen shaqaaluhu culimada. qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Mareykanka ayaa taageero ballaaran u muujiyey heshiiskii is-afgaraad ee dalka Mareykanka. dhegeystayaal halkeeda ku celiyo. qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Mareykanka ayaa taageero ballaaran u muujiyey heshiiskii is-afgarad ee dhex maray dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya. qoraal dheer oo ay ku daabaceen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahankan ka soo jeeda dalka Mareykanku wargeyska National Interest ayaa lagu sheegay in heshiiska is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya uu faa'iido weyn ugu fadhiyo dalalka geeska Afrika, iyagoo sidoo kalena caddeeyey in saldhigga ciidan ay Soomaaliland siinaysa dalka Itoobiya uu wax weyn ka tari doono xaaladda ammaan ee gobolka geeska Afrika. heshiiskan isfaham ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta Mareykanka ka soo jeeda sheegeen inuu horseedi doono aqoonsi ay dowladda Itoobiya siiso jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo albaabada u firi doono aqoonsi ay wadamo kale siiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland. qoraalkan ay siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Mareykanka ka soo jeeda ku qoreen The National Interest wargeyska la yidhaahdo
oo wakaaladda wararka somalilan ee sol ay soo turjuntay ayay ku sheegeen in heshiiskani uu faa'iido badan u keeni doono wadamo badan oo maanta sharaysanaya ama dhinaca kale ka eegaya oo ay dowladda masar kow ka tahay. guddoomiyaha gobolka saraar ayaa la shirayay isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolkaasi. guddoomiyaha saraar maxamed cismaan xaaji axmed oo maanta la shirayay isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada caynaba. haddaba intii uu socday kulanka u dhexeeya guddoomiyaha gobolka saraar iyo isuduwayaasha dowladda degmadaasi caynaba ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrimo ay ugu mudan yihiin nabadgelyada iyo xog waraysi la xidhiidha howlaha shaqe ee cid kasta ay qaranka u hayso in la sameeyo ololo la xidhiidha ururinta cashuurihii baaqday sanadkeenu kasoo gudubnay kahortaga dhuxulaysiga iyo sidii dactir loogu samayn lahaa ceelasha biyaha ee magaalada ay ka cabto. guddoomiye maxamed cismaan ayaa isudawayaasha uga mahad celiyey siday ugu qeyb galeen kulankii maanta loogu yeedhay. waxaanu intaasi ku daray in kulankani uu ahaa mid aada muhiim u ah. gabagabadii waxa uu bulshada ka codsaday in ay u dhaganuglaadaan shaqaalaha cashuur ururinta ka wada gobolkaasi saraar. wafdigu hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan ayaa gaadhay magaala madaxda gobolka gebile ee gabiley. agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga mudane cabdixakiim aadan saciid iyo wafdiguu hogaaminaya ayaa safar shaqo ku gaadhay magaaladaasi gebile ee xarunta gobolka ah. sidoo kale waxaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha safarkiisa shaqo ku wehelinaya qaar ka mid a agaasima waaxidyada wasaaraddaasi. ujeedada safarkan shaqo ee mas-uuliyiinta wasaaradda maalgashiga ay ku gaadheen gebile ayaa ahaa diyaarinta iyo gogolxaadhka aagga warshadaha ee magaalada gebile ay yeelan doonto. wafdiga agaasimaha ayaa markii ay gaadheen gabiley waxay kulamo la qaateen maamulka gobolka iyo degmada gabiley kaasoo si qoto dheer ay u gorfeeyeen sidii loo taabagelin lahaa aagga warshadaha ee gabiley. maamulka dowladda hoose ee degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa ka hadlay badeecado wakhtigoodu dhammaaday oo ay soo qabteen waxaanay dignin u direen ganacsatada degmadaasi ka howlgasha maxamed mooge. mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada maxamed mooge ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen badeecado kala duwan oo wakhtigoodu dhammaaday waxaana intaa ku dareen in ay badeecooyinkan dhacay gubi doonaan sababtuna tahay sidii badqabka caafimaadka bulshada ay u ilaalin lahaayeen. waxaanay ganacsatada uga digeen in aanay bulshada ka iibinin badeecadaha kala duwan ee wakhtigooda uu dhacay. halka dhegeystayaal aduurka kala socotaana waa redio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. iyadoo weli ay socoto weeraradii bahalnimada ah ee yuhuuddu ay ku haysay dadka falastiiniyiinta ayaa 630 qof ay ku naf waayeen halka tiro kalena uu dhaawac soo gaadhay kadib markii ciidamada yuhuuddu habeenkii xalay ah ay weerar ku qaadeen xerada qaxootiga nusayraad ee marinka gasa ku taala. dadka weerarka ku dhintay ayaa u badan caruur iyo dumar sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee falastiiniyiintu. geesta kalena ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa markale ku celiyey in ciidamadiisu ay u diyaargaroobeen guluf ballaadhan oo ay ku qaadeen magaalada rafca ee ay deg yihiin maatada ka badan 1,600,000 ee qof. dhinaca kale la tirada dadka ku naf waayey weerarada arxandarrada ah ee yuhuuddu ay ka wada marinka gasa iyo deegaanada ku xiran ee falastiiniyiinta ayaa lagu soo warramaya inay dhaaftay 31,000 oo qof 490 halka dhaawacuna uu ka badan yahay 73,000 oo qof. afhayeenka golaha ammaanka qaranka maraykanka john kirby ayaa wuxuu sheegay in dowladda maraykanku ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa ciidamada gacanta ku haya hubka nucleerka ruushka sida uu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey bartiisa egas ama twitterka. waxaanu afhayeenku caddeeyey in aanay jirin xaalad keeni karta in sare loo qaado heerka diyaargarowga ciidamada difaaca nucleerka ee maraykanka. mr kirby waxaa kale uu caddeeyey in dowladda maraykanku ay si dhow ula socoto hadallada kala duwan ee ka soo yeedhaya mas-uuliyiinta ruushka oo madaxweyne putin uu ku jiro kuwaasoo ku saabsan u diyaargarowgooda dagaal ku salaysan hubka waxgumaada ee nucleyeerka. madaxweynaha dalka ruushka putin ayaa hore u sheegay in ciidamadiisu ay diyaar u yihiin haddii loo baahdo inay galaan dagaal dhanka nucleyeerka haddii lagu soo dilo dalka ruushka ama ciidamada nato ay ka dagaalamaan ama ka howlgalaan dalka gulufka adag uu kala dhexeeyo ruushka ee ukraine. tirada codbixiyayaasha doorashada madaxtinimada dalka ruushka ayaa la sheegaya inay kor u kacday sida ay sheegtay guddiga fadhida xarunta dhexe ee doorashooyinka dalka ruushku. dadka codkooda dhiibanaya ayaa tiradoodu ay gaadhaysaa iminka 60% iyo badh taasoo kor u soo kocday halkii ay ka taagneed maalintii shalay in ku dhow
boqolkiiba 20 tirada codbixiyayaasha ayaa kordhay maalintii labaad oo codbixintu ay dalkaasi ka socoto waxaanay arrintani kusoo bogmaysaa xili madaxda guddiga dhexe ee doorashooyinka ruushka gabadha lagu magacaabo ela balmalafa ay ugu baaqday shacabka dalkaasi inay u diyaargaroobaan sidii codkooda ay u dhiban lahaayeen balmalafa ayaa tilmaantay in ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukraine ay naftooda halis u geliyeen difaaca xorriyadda dalkooda iyo madax banaanida ruushka waxaanay ku bururisay madaxtinimada ama muwaadiniinta ruushku in ay iyaguna isu diyaariyaan si ay codkooda u dhiiban lahaayeen maadaama uu halkadhiga doorashadan yahay ruush madax bannaan oo xoogan doorashada madaxtinimada oo socon doonta muddo 3 maalmood ka soo bilaabantay 15 bisha maanta 16 iyo berri oo 17 ayaa lagu warramaya in codkooda ay dhiibanayaan dadka ku nool 4 gobol ee xooga kaga qabsay dalka ruushka dalka Ukraine وروحي dhegeystayaal aan caawisimada intaan dalka gudihiisa iyo dibadiisu waa naga inta warkeenan iyo warar kale waxaynu ballan doonaa baahinaheena in ugu soo aadan iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta la xeed caawina 7 ay noqonayso ayaa markan bal waxaynu eegi doonaa ciyaarihii iyo wixii halka ay kala marayaan walow ciyaaro kooban dalka Ingiriiska imika ay ka socdeen xamsow aad iyo aad baad horta u mahadsantahay Mustafa Ibrahim Saacadaale wararkii dunida ayuu Mustafa inoo waramayay dabcan Mustafana waana khabiir xagga ciyaaraha oo inta badan markaanu istuudiyaha iyo fagarayaasha kale aanu isku soo galno Mustafa waa halka xogtii ugu dambeysay iyo halka la isla marayo iyo waliba ayaan inta badan dadka u dhuntoloolo uu yahay Mustafa imika waxa la isla soo gaaray ciyaarihii waliba Ingiriiskii waa meel xasaasiya bay imika maraysaa cawa horta maxaa la filay hortiin imika laba ciyaarood quraab la ciyaarayba way maanta waa Burnley iyo Brentford labada kooxood la yiraahdo kooxda Burnley baa 2 ku badisay ciyaarta kalena waa Luton Town iyo koox yaro la yiraahdo Nottingham Forest hal iyo hal bay isla dhaaf waayeen ciyaarta inagu soo socotay 8 waa Fulham iyo Tottenham oo kamid ah kooxaha waaweyn waa aad loo sugayo laakiin ciyaaraha aad ka wiigan aynu u filaynaa waa ciyaarta Everton iyo Liverpool ay ciyaari doonaan waana isku Manchester isku magaalada Liverpool bay ku wada ciyaaraan waa magaaladaas lagu wada ciyaarayo waa laba kooxood oo aad culwa laakiin ciyaarta xiisaha leh aynu sugaynaa Brighton iyo Man City iyo maaha ciyaaro la sugayo ciyaarta la sugaya waa wada ciyaareen Arsenal iyo Chelsea ajib waa loo dhagtaagay Chelsea sidoo doonta yeeshaa markii kooxaha weyn la ciyaarayso haddii doonto ka badisay imika sidii Man City oo kale ka badisay Arsenal qudheedu yar isma laho inta badan haday doonto